odayaashan ayaa warbaahinta u sheegay inay heshiis ka gaareen dil dhawaan Muqdisho loogu geystay xogayihii maxkamadda sare ee Soomaaliya marxuum Mursal oo Cumar Cismaan kaasi oo dilka uu geystay Faarax Cali Nuur Xayle oo ahaa darawalkii General Gaafo taliyii hore ee nabad sugidda Soomaaliya. Odayaasha ayaa sheegay in labada reer ay ku heshiiyeen inay diya kala qaataan kadib wada hadal muddo socday. Xuseen Nuur Xayle oo ah adeerka shakhsiga dilka geystay ayaa mag dhan $90,000 ku wareejiyay Siciid oo Cumar Cismaan oo ah walaalka marxuumka la dilay oo aabihii oo Cumar Cismaan oo ku sugan magaalada Burco uu u soo wakiishay gartan sida aabuhu uu sheegayo. يوم ka hadli kara صح weeyaan cid kale oo ka mas'uul ma jirto ninkii kale ka ku haysta ama meesha soo ka saade iskaga bax yaasa iga mas'uul صح $90,000 way lacagta Siciid waa magti walaalka iga guddoon marka gacanta ku haya waa $90,000 oo aan 90,000 ka qaatay magtii aan ka doonaynay habar cayne sababta gudoomiyaha Siciid Cumar Cismaan. heshiiskan odayaasha ee gaareen ayaa ka dhacay xarunta maxkamadda gobolka Banaadir gaar ahaan xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Cabdinaasir Maxamed, telefishinka On Cable, magaalada Muqdisho.